الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كنت هالكن كم موضوع يوم مدحوينها جمهورية الصومال لأنه مقعابي إن قابيان حفلة ستيدي تون كمية صوص عطائق التردد تهاي سنة كيس الدنيا لبعض كسو وريكتي maalintii xorriyada jamhuuriyadda Soomaaliland dib loola soo noqdo waxaanu fariintan u direynaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay ku nooshahay dal iyo dibad waxaanu leenahay muwaadin kasta oo reer Soomaaliland waxa looga baahan yahay inuu ka mid noqdo dadka u dabaaldegaya xornimada iyo dabaaldega maalinta qaranka ee aynu xornimadeedan la soo noqonay muddada 32 sanadood waxaa sharaf u ah qof kasta oo muwaadini inuu qaranka taageero waxaa sharaf u ah inuu qaranka ka mid yahay waxaa sharaf u ah inuu waajibaadka qaranka uga baahan yahay qabto waxaa sharaf u ah in uu tuso awoodiisa dadka ka soo horjeeda qarannimada reer Soomaaliland waxaan afmidaysan ku leenahay muwaadin ka qayb qaado maalinta dabaaldega qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay ka soo wareegtay 32 sanadood aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaanu halkan idinku soo gudbino message-ka iyadoo dadka iyo darajo kasto ay leeyihiin haddaan xagga ka soo bilaabo aad aragto meeyarka caasimadda agaasimihii guud ee madaxtooyada wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada gudoomiyihii gobolka Maroodi Jeex wasiirkii wasaaradda tiknoolajiyada iyo warshadaynta wasiirkii arrimaha dibadda gudoomiyaha guddiga ahna wasiirka arrimaha gudaha wasiirka waxbarashada wasiirka gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka beeraha iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda dadka intaa leeg ayaa codkoodu waxay message fariintan idin soo dirayo idin leh muwaadin ka qayb qaado dabaaldega doorashada 32 ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha guddiga ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha inuu kelmadda ugu dambeysay diiraahdo